muqdisho xalay waxa ka dhacday ceebtii adduunka waxaa mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Kaaraan la isugu yeeray dhammaan saaxiibada amaba asxaabta public figure-ka ama caanka hadba sida u taqaanin haday TikTok leeyihiin haday YouTube leeyihiin adigu dhammaan dhalinyaradan baraha bulshada ka soo muuqata kadib waxa dhacday halkaas markii la isugu yeeray dadka la casuumay waxa kamid ahaa Dayax Dal Nuurshe oo isaguna halkaas looga yeeray Dayax intuu sameesha imaan waxa meesha hore u sii joogay fanaaniin Nimcaan Hilaac kamid yahay iyo team ay isaga ishayaan oo Goodgeesay wiilka lagu magacaabo uu isaguna kamid yahay iyo dhalinyaro kale oo fara badan oo isla hadlin oo dabcan wajiga la isu bedelo hadaba maxaa dhacay markii la isugu yimid maqaayadan laguna casuumay dhalinyaradan Dal Nuurshe waxa la sheegay intii uu jidka ku soo jiray in la wargeliyo loo sheegay in team aysan isku fiicnayn oo baraha bulshada oo hebel dabcan la yiri oo idan isku fiicnayn ba halkaas jooga sidaas ula soco isaguna waxa uu yiri dabcan de nin walba qof baa casuumay waxna kama soo qaadanay sidii buu meesha ku yimid sida wararka xogta rasmiga aan ku helayno markuu halkaas soo gaaray Goodgeesay iyo team uu hogaaminayo ayaa waxa uu yiraahdeen waliba hortiisu ka yiri ayaa la yiri sida saxda ah hase yeeshee Dayax mar uu qoraal soo qoray waxa uu yiri aniga cid horteeda ka caytanta ma jirto Goodgeesay waxa uu yiri baa la yiri meel aniga laygu casuumay ma dul qaadan kara in khaniis looga yeero dabcan arintaas oo aad loo falanqeynayo baraha bulshada maanta ayaa waxay tahay mid aad u fool xun halkaasna waxa ka dhacay in lagu kala dareero oo dhalinyaro badan oo Goodgeesay uu hogaaminayo oo fara badan inay halka ka soo yaacaan dad badan ku jira oo niman waaweyn oo isugu jira Bulaal Bulshaawi baa muuqaal soo dhigay isna bartiisa Snapchat-ka isaga oo gabdha iyo niman isku jira la hadlayo oo leh maxaa dhacay halka Goodgeesay iyo qaar kale oo meesha joogay la weydiiyay see wax u dhaceen Goodgeesay uu ka lexleexanay hase yeeshee dad kale oo meesha joogay ayaa waxay rabeen inay ku dhiiradaan waxa meesha ka dhacay oo ahayd in Goodgeesay uu yiri khaniisiintu meesha ay soo galeen aniga fadhiima yaalo sidaasna ku soo baxay hadaba team ku dhinaca Dayax Dal Nuurshe ayaa iyaguna waxay beeniyeen ereygaas inuusan Geesay ka oran meeshaas haduu dhihi lahaana dabcan gacan qaad iyo dagaal ba imaan lahaa hase yeeshee ila lagu kalsoonaan karo oo xaqiiqada u dhow ayaa noo xaqiijiyay in ereygaas uu yiri kadibna uu meesha ka soo baxay hadaba dagaalkan Geesay iyo Dayax Dal Nuurshe u dhaxeeyo oo dabcan soo ahaa wiil iyo abtigiis hadana isku ah hase yeeshee dhawaan kala xarig furtay ayaa waxa uu ka soo bilowday kadib markii aad ogeydeen oo raaligelinta uu soo dhiibay Goodgeesay hase yeeshee Dayax Dal Nuurshe ma uusan qaadan raaligelintaas sidii ayaan cuqdad la iskugu qaaday dagaalkii dabcan qof walba ogaa hadda dib ugu noqonayni hadaba ereyga khaniis ma ahan erey aad u wanaagsan oo qof rag ah loo isticmaali karo Geesayna waxa la yiri markii uu ereygaas yiri dabcan uu ka soo dhaqaajiyay meesha oo ma uusan ku sii hakanin wuxuuna yiri ma rabo mana doonayo inaan iska hor muuqano ninkaas jilicsan oo sidaas ereygaas soo ku dhawaaqay team badan baa la soo baxay oo rag iyo dumarba isugu jira oo dabcan aysan isku mowqif iyo isku siyaasad ahayn ninka lagu magacaabo Dayax Dal Nuurshe inta kadib Dayax qoraalkan aad u jeedaan ayuu soo qoray wuxuu yiri meel libaax soo galay looma joogayso dabcan waa erey mahmah waaye dadku qaar hees bay ka dhigeen meel libaax soo galay looma joogayso dabcan wuxuu yiri aniga libaax ah lo'duna meesha libaaxu soo galo de dabcan way ka cararaysaa oo qof aan aqoon ma jiro qoraal dheer oo kale sii raaciyay ana sidaana dhaga hadal Snapchat-kiisa wax fara badan buu soo dhigay dabcan waxa uu muuqataa hadana in dagaalkii laba kacleeyo oo baraha bulshada uu ka qarxay mar horay u socday oo mar walba Dayax iyo team ay isku dhaganaayeen adigu ra'yigaaga iyo ereyga sidaad u aragtid nala wadaag qaybta soo comment-igana nagula wadaag waana ku mahad celin